boqortooyada Sacuudiga waa dal dhaca galbeedka Asia ama mandiqada bariga dhexe ama jasiirad lamoodka Carabta. Waxa uu ku fadhiyaa masaafo gaaraysa 2.1 milyan oo kiiloomitir ah. Ku dhawaad 4 jeer ayuu ka weyn yahay dalkeena Soomaaliya. Waa dalka labaad ugu baaxadda weyn wadamada Carbeed. Sidoo kale waa dalka ugu weyn galbeedka Asia ama bariga dhexe. Waa dalka shanaad ugu weyn qaaradda Asia, ahna kan 12aad ugu weyn caalamka oo dhan. Wadanka waxa uu xuduud la wadaagaa 8 dal oo Carbeed oo kala ah: Yemen, Oman, Imaaraadka, Bahrain, Kuwait, Ciraaq iyo Urdun. Waa dalka qura ay maraan labada badood oo kala ah Badda Cas iyo Badda Biyaha Gacanka Bershiya. Ku dhawaad 34 milyan oo qof ayaa ku nool wadankaas. 38 boqolkiiba oo ku dhow 13 milyan oo qof waa ajaanib dalkaas ka shaqeeya oo aanan u dhalan boqortooyada Sacuudiga. Boqortooyada Sacuudiga waxaa la aasaasay 88 sano ka hor, waxaana sameeyay Abdulaziz ama Ibnu Sacuud oo ah aabaha boqorka maanta maamula dalkaas. Waa dal dhaca mandiqad muhiim ah, badankiisuna uu yahay saxare balse hodan ah. 6 sano kadib xilligaas ayaa laga helay shidaal. Maanta Sacuudiga waa dalka labaad ee ugu shidaal soo saarista badan caalamka, waana dalka koowaad ugu shidaal dhoofinta badan dunida oo dhan. Sidoo kale Sacuudiga waa dalka labaad leh keydka shidaalka ugu ballaaran caalamka, waana kan shanaad leh keydka gaaska ugu ballaaran caalamka. Waxaa loo tixgeliyaa in Sacuudigu uu yahay awoodda hogaamisa tamarta dunida. Keydka kheyraadka ee dalkaas waxaa lagu qiimeeyaa lacag dhan 34 trilyan oo dollar. Waa dalka saddexaad ee leh keydka hantiyeed ee kheyraadka ugu ballaaran caalamka. Dhaqaalaha Sacuudigu waa kan 18aad ee caalamka ugu ballaaran, ahna dalka ugu dhaqaalaha badan galbeedka Asia ama guud ahaan bariga dhexe. 780 bilyan ayuu gaarayaa GDP-ga dalkaas. Dakhli sanadeedka soo gala qofka Sacuudiyaanka waxa uu kor u dhaafayaa 54,000 celilis ahaan sanadkii. Waa dal ka mid ah wadamada heerka horumarka bulshadooda aadku u sarreeyo. Sidoo kale dalku waa mid ka mid ah wadamada nidaamka warshadaha ku horumaray ee G20. Shirkadda shidaal soo saarista u qaabilsan dalkaas ee Saudi Aramco waa shirkadda ugu qiimaha sarreysa caalamka, ahna tan soo xareysa hantida ugu badan sanadkii. Waxa ay maamushaa keed shidaal oo 277 bilyan oo fuusto kor u dhaafaya, waana shirkadda ugu shidaal soo saarista badan caalamka. Hantida ay soo xareysana waxay kor u dhaafaysaa 1 trilyan. Sidoo kale Sacuudiga waa dal dhanka ciidamada qarash aad u badan ku baxsha, kaas oo xulufo la leh galbeedka. Waa dalka saddexaad ee qarashka ugu badan ku baxsha ciidamadiisa. Sanad walba 63 bilyan ayuu ku baxshaa ciidankiisa. Sidoo kale waa dalka hub ugu soo iibsashada badan dunida oo dhan. Nidaam ahaan waa dal boqortooyo Islaami ah, waxaa maamula dalka hal qoys. Sharciga ugu sarreeya boqorka ayuu gacanta ugu jiraa, inkastoo dhaxal sugaha dalkaas wiilkiisu si rasmi ah u maamulo dalkaas. Sacuudiga waa dal saameyn ballaaran ku leh mandaqada uu dhaco iyo guud ahaan wadamada Islaamka, isuna arka hormuudka wadamada Sunniga. Siyaasadda dibadda ayuu dhaqaale badan ku baxshaa si uu ugu muuqdo. Wadamo badan oo Iiraan iyo Turkiga ay ugu horeeyaan ayay isku hayaan maamulidda bariga dhexe. Sharciyan diin aan Islaamka ahayn in dadkeeda si rasmi ah macbadyo ugu yeeshaan lagama ogola. 85 boqolkiiba bulshada dalkaas waa Sunniyiin, halka 15 soo hartayna ay yihiin Shiiciyiin. Dadka wax qora waxna akhriya ee dalkaas ku nool ayaa bulshada ka ah 95 boqolkiiba, halka cimrigooda uu gaaro ilaa 77 sano celilis ahaan. Sacuudigu waa dalka ugu weyn dunida wadamada aan webiyada lahayn. Dhanka waxbarashada dalkaasi jaamacadaha ugu tayada sarreeya Asia ayaa ku yaala oo qayb ka ah 100 jaamacadood ee dunida ugu sarreeya.